gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro oo maanta warfidiyeenka kula hadlayay magaalada Hargeysa waxa uu markii ugu horeysay dhaliilo u soo jeediyay xukuumadda madaxweyne Biixi iyo waliba sidoo kale xukuumaddii ka horeysay ee uu garwadeenka ka ahaa madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo. cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa waxa uu ku baaqay madaxweyne Biixi uu xilka madaxweynenimo iska casilo isagoona sidoo kale shakhsi qaranka khiyaameeye ku tilmaamay madaxweynihii hore ee Somaliland mudane Silaanyo. waxa uu sheegay in madaxweyne Silaanyo la hor keeno maxkamadda si looga jaro faldambiyeedyo uu qaranka ka galay. waa sida uu hadalka u dhigay gudoomiyaha oo arrimahaasi arrimo badan oo kale oo la xiriira heshiiska dekada Berbera ka hadlaya waxa hadaladiisi kamid ahaa kulbiyow waxay huursanaadaanba hadimooyinkii dalkan iyo dadkan ka gasheen waa kuwa ogta ka cadaaday qarannimadii iyo madax banaanidii Somaliland waxay naga luntay oo inaga ambatay 1960 waxay mar labaad ambatay oo la ambaday madaxweyne Silaanyo wuxuu ka tagay taariikh madow qarankan iyo madax banaanidiisii wuxuu u geystay dhaawacii ugu xumaa waxa dhacday khiyaamo qaran shacbigiisa calankiisa ciidiisa iyo himiladii shacbiga uu khiyaameeyay wuxuu ku bedeshay go'aansitaagii Somaliland iyo madax banaanidiisii dhaqaale iyo dana shakhsi ah heshiisyada dekada iyo saldhigga Berbera oo dawladda federaalku saxeexday ayuu uga dhigay in xukuumadda Somaliland la gashay dawladda Imaaraadka. jiritaanka warkan sida ka warqabtaan waxa xaqiijiyay dawladda wasiiru dawlaha arrimaha dibadda ee dawladda Imaaraadka Carabta Anwar Maxamed Qarqaash waraysi uu toos u siiyay BBC-da laanta afka Carabiga hadalka dawladda Imaaraadku waa dhab Silaanyo wuxuu jabiyay dastuurka wuxuu khiyaameeyay shacbigii wuxuu himiladoodii ku raday hog madow oo ay adkaanayso in dib looga soo saaro wuxuu mutaystay in maxkamad la hor keeno oo lagu qaado khiyaamo qaran. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wuxuu qayb ka ahaa shirqoolka iyo dhagarta kulmiye u maleegay shacbiga Somaliland. marka hore xogogaal buu ka ahaa khiyaamada qaran ee madaxweyne Silaanyo u geystay dadkiisa iyo dalkiisa.